kala bedelashada maxaabiista Falastiin iyo Israa'iil ciidanka gumeystaha Yahuudda waxay ogolaadeen 4 maalin oo xabad joojin ah oo lagu kala wareegayo maxaabiista Falastiiniyiinta waxay sii daayeen ilaa 50 maxaabiis oo Israa'iiliyiin ah halka dhinaca kale ciidanka gumeystaha Yahuudda ay ayagana sii daayeen Falastiiniyiin maxaabiis ah oo u badan hooyooyin iyo ciyaal laakiin tani Falastiin waxay uga dhigan tahay maalin guul maalin farxadeed hooyooyin 10 sano ku xirnaa xabsiyada Israa'iil ayaa dib ugu soo laabtay guryahooda waxayna dib u la midoobeen qoysaskooda sida hooyadan oo muddo 8 sano ah u afduubneed ciidanka gumeystaha Yahuudda waxay hadda dib u la kulantay gabadheeda oo ugu dambeysay iyadoo aad u yar sidoo kale dadka xorriyadooda dib u helay waxa kamid ah wiilkan yarka ah waxa la xiray sanadii 2015 hadda ayaana la soo daayay laakiin midda xusida mudan maxaabiista ay Falastiiniyiinta sii daayeen waxay ahaayeen dad rayid ah oo Israa'iiliyiin ah walina waxa gacantooda ku jiro saraakiil iyo ciidan Israa'iiliyiin ah oo ayadana lagu bedelan doono maxaabiis ayagana aad